codsigeen walaalayaal waa in aad subscribe noo saartaan kabacdi gambaleelkana aad furataan kabacdi like-tana aad noo saartaan waliba noogu dadaashan like-ta kabacdi share-na aad dhahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axibaa'i fillah, kusoo dhawaada waa Sheekh Rimi channel. Maanta barnaamijka aan ka hadlayo barnaamijyadii hore waa uu ka duwan yahay. Waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay 4 qofood ayaa waxay inoo soo gudbiyeen barnaamijkii aan soo gudbin jirnay oo ahaa wasfadii haddii aad rabtid xanuunka ku hayo wuxuu yahay in aad ogaatid caynkaas sameey markii adiga aad samaysid kabacdi riyo ayaad arkaysaa amaba cayniyan ayaa lagugu sheegayaa bishaaro ayaa Ilaahay kuu soo diraayo. haddii aad adiga aragtid riyo noo soo sheeg ayay ahayd ballantu. 4 qofood ayaa inoo soo gudbisay riyo ay arkeen markii ay dhameeyeen. 7 maalmood markii la dhameeyay su'aalooyinkii la soo weydiiyay ayaan rabaa inaan ka jawaabo. ilaa iyo 4 qofood ayaa isoo weydiisay oo ah sheekhow markaan barnaamijkii isticmaalnay markaan dhameynay ha ahaato ama anagoo ku gudu jirno 1 qofood ayaa wuxuu ii sheegay isagoo oo waliba dumar ah ayadoo marayso 4 ay u tahay 4 habeen ayadoo isticmaalayso ayay magaranaysaa ii sheegtay wayna ila soo socodsiinaysay khayr Allah siiyo. qoftaasi waa maamo Soomaaliyeed. waxaan Ilaah u weydiinaynaa anagoo dhan inuu Ilaah naga aqbalo inuu Allah uu caafiyo insha Allah biidhnillaahi alkariim. 3 qofood kale ayaa ku xigtay. 3daas qofood ayagana waa u sheegayaa. 4taas qofood maamadaas Soomaali ayaa magaranaysaa maamadaas Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed ayaa ugu horeyso waxay dhahday maamadaas waxaan ku riyooday gabar aan magaranaysaa qaraabanahay amaba saaxiib aan nahay ayaa xanuun aniga aan qabo ay ka sheeganaysay ayada. waxaan riyo ku arkay ayadiyo qurux badnaatay aad iyo aad u qurux badan. waliba waan la kaftamay waxaan dhahay warwad nuuraysaa maxaad xitaa waa da yaraatay maxaad isticmaashay. markaasay ay dhahday xanuunkii waan ka caafimaaday. haddii aad doonaysid in aad adigana caafimaadid saliga nabiga badso ayay dhahday bay tiri. maasha Allah gabadhaas su'aasheeda ama gabadhaas cudurkii hayay markii wasfadii anaga aan soo sheegnay ay isticmaashay riyo ayay aragtay waxayna ku aragtay gabar saaxiibadeeda xanuunka ayada haayo oo kale mid la mid ah ay qabi jirtay. waxaana loo sheegay in ay saliga nabiga ay isku daweyso. xadiiskii buu ahaa cidii saligayga badisa yani dambigiisana waa la dhaafayaa ii sheeg adiga hamigiisana waa laga baabi'inaa waxa wixii hami. gabadhan marka hamigeeda oo xanuunka hayay saliga nabiga badso ayaan dhahay waana u sheegay. haddana hortiina ayaan ka sheegayaa saliga nabiga badso biidhnillah dawadaad waad haysaa. su-aasha labaad waxay tahay wiil Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri aabahay ayaa xanuunsanaa wasfadii adiga aad sheegtay ayaan magaranaysaa isticmaali jiray quraanka aniga ayaa u akhriyay laakiin tahliisha asaga ayaan siin jiray. waxaan arkay xalay riyo aan aad iyo aad ugu argagaxay. wuxuu dhahay anagoo meel ku cayaarayno ani dhalinyaro asxaab aan nahay waxaan arkay qiiq meel dheer oo yani madow ah. qiiq madow oo meel dheer ka baxaya ayaan arkay. qiiqii ayaan u wada cararnay. waxaan arkay asxaabtaydii meel ay ka baxeen waan waayo dhahay. keligay ayaan is arkay anigiyo qiiqii u socdo. qiiqii markii aan u dhowaaday geed hoostiisa ayuu qiiqii ka baxayay buu yiri. anigoo raba in aan aado yani hortayda ayaan waxaan ku arkay god weyn oo qodan bahalla iyo magaranaysaa abeesooyin iyo masas ay ka buuxaan iyo dibqalocyo ama hangarle qof busada u yaqaano. waan cabsaday buu yiri dib ayaan u soo cararay. riyadaas ayaan arkay buu yiri
walaalkayga muslimka ahow waxaan ku weydiinayaa geedkaas haddii adiga aad tegi lahayd qiiqaas meesha ka baxaya aad soo damin lahayd aabbahaaga wuu caafimaadi lahaa waayo aabbahaaga waa la sixray ciddii sixirta anaga ma naqaano balse waxaa lagaa rabay markii adiga abeesooyinkaas adiga aad aragtay in aad quraan akhriso amaba حسبي الله ونعم الوكيل aad ku dhaaftid ama aad ku gudubtid ayaa laga rabay xasbuna allah wa ni'mal wakiil in aad ku gudubtid ayaa la rabay haduu alla ku roon yahay balse ma dhicin waad soo cabsatay waad soo noqotay mar labaad hadii aad aragtid ama wax saas camal hadii adiga aad aragtid bisinka qabso oo gudub bas waxa ku wacdaatay aabahaaga in uu sixran yahay bas muhiimadu waa intaas oo sixirkiisana kii la duugay waay meel baa loogu aasay marka hadii sixirka adiga aad soo bixin lahayd ama dabkaas aad damin lahayd aabaha sixirka waa ka kici lahaa caafimaadkiisana taam ayuu noqon lahaa insha Allah wali jaanis ayaad haysataa ku dadaal qofka labaadna waxa waaye waa gabar dumar ah waxay dhahday waxaan ku riyooday qof aanan garanaynin baa ii yimid goortay tahay laakiin iima sheegin wiilkan xalay bay ahayd gabadha waxay tiri laakiin gabadha dadka oo sameeyay waa wasfadii anaga aan soo tilmaamay ama tilmaantii anaga aan soo bixinay dawadii anaga aan soo sheegnay dadka isticmaalay riyada ay arkeen ayaan idin soo gudbinayaa iyagana dabcan way dhageysanayaan waxay dhahday qof xanuunsan baan soo booqnayna buu yiri waana waday mana kasaayo qofka ii waday sidaan u soconay waxaan aragnay waxna soo ceyrsanayo waxay yihiin aanan sheegi karin balse ay u ekaayeen wiil miyaa la yiraahdaa baasha faanta dheer leh ayaan u fahmay kulli magacaas ayay ii sheegtay waana taas ayadoo is ceyrsanayso ayaan aragnay meel wadada ayaan dhinac uga leexanay markaan ka leexanay ka bacdi wayna moodeen oo wayna jiireen waan cararnay meel yar ayaan saa u galnay ninkii wuxuu ila soo baxay nin madow buu ahaa oo ma garanaysaa aanan garanaynin awradiisa ayuu ila soo baxay wuuna ila soo aaday wax dhuuban oo sida cirbada ah ayuu ila soo baxay wuu igu muday wuxuu igaga aadiyay farjigu igaga aadiyay ka bacdi waan dareemay waan soo toosay waan cudubileystay waan ku noqsaday bay dhahday reedaas ayaan arkay walaashayday bismillaahi wassalaatu wassalaam ala rasuulillah waxa kula jiro waa jin ayaa ku haayo waana lagu tusay hadii meel cilaaj adiga aad ogtahay tag hadii kale dawooyinka anaga aan soo gudbin doono calaamadihii jinka iyo sixirkii lagu kasaayay iyo isha naga warsug haduu alla yiraahdo su'aasha ugu dambaysa waa gabar Soomaaliyeed waxay dhahday sheekhow markan barnaamijkii aad soo gudbisay aan isticmaalay waxaan arkaa habeen kasto albaabka markaan ka soo baxo albaabka qolkeyga markaan ka soo baxo guriga daaradiisa ayaa waxa ii fadhiyo qof leelan maracad wato oo sidii kafanta oo kala ah waa ka cabsada xaggeeda ayaan aadaa waxaas xaggiisa ayaan aadaa waa iga jeestaa waana leelan yahay waxaas ayaan la yaabay waxay yihiin bismillaahi wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah adigana waad sixran tahay waa ka xumaa inaan saas ku dhaho waxay sheegaysaa sixir qofkii ku sixiray waad ogaan kartaa adiga qofkaas meesha fadhiya leelan hadii wajiga aad ka faydi lahayd qofku yahay waad arki lahayd ama rag ama dumar ama qof la yaqaan ha ahaado ama qof aan la aqoonin ha ahaado wajiga hadii aad ka faydi lahayd waxba ku cadaan lahaa laakiin kama aad faydin bas muhiimadu waxa weeyaan waxa ku cadaatay in lagu sixray sixirkan Allah ka qaado insha Allah waadna ka guuleysan doontaa intaas oo dhan waan soo gudbin doonaa dad kale haday jiraan wax ay ku riyoodeen markii barnaamijka isticmaaleen qofkii isticmaalay riyaha duu arkay hana loo soo gudbiyo biidhnillah hada wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك